واقع halka ba gabadha meedkeedii la galshay waayahay hawlwadeenadan ayaa gabadha meedkeedii qaadaya meedkii gabadha ayaa halka la galshay hooyooyinka iyo markaas dadka jooga aad ay u naxsan yihiin oo arrinkan ayaa arrin aad looga argagaxo waayahay meedkii waa la saaray gabadhu waa 20 sano jir dadka su'aalahaas weydiinaya gabadhu waa 20 sano jir markaan wixii ka dambeeyay meedka ayaa la asturayaa oo la soo duugayaa waxaynu rajaynaynaa in aan hooyooyinka qaar la hadalno waayahay hay ma hadlay bal ka hadal maanta waxa halkan ka soo doontay magacaaga ku bilow بسم الله مجدي وفهم المعلم أيه waxaan meesha aan u imaanay insaan oo soo qaadano walaashan shaariyo tiiraay aad ku laga qaadi karo aad iyo wala dareenkana ma qiyaaskana sababtoo ah gabar walaashan oo saan in beer aan xamalaha qofka soo yeelay maadaama waxaan dadka anaga waxaan bareen ilaahay ugu bareenaa gabadhaas jannada firdawsi geeyo wixii oo ku geystay nabarkaas u geystay ilaahay isagana ciqaabtiisa dhulka ugu shubaa adduun iyo aakhiraba si ilaahay aan ugu rajaynaynaa billahi tawfiiq waayahay aad ayuu mahadsantaa waa mid ka mid ah gabdhaha gurceel ku sugan oo arrinkan si weyn uga dhiidhisay iyadoo markaas dareenkeeda cabiraysay baabuurkii qaaday ayaa markaas sii soconaya goobtiina waxay noqonaysaa goob faaruq ah iyadoo markaas halkan ay tahay gabadha barkadii markaas iyadoo waliba biyo ku jiraan qofka saas sameeyay qof markaas kulay adduun iyo aakhiro ku dhiban ayuu noqon doonaa halkaas ayuu gabadha meedkeedii dhigay dad badan ayaa codsanaya halkaas ayuu gabadha meedkeedii dhigay oo jawaanka halkaas in kaga muuqdo ayay gabadhu ku jirtay jawaankuna dabcan qorraxda ay ka dhigtay halkana waa halkii dheecaanka gabadha uu ku baxay xilliga barkada lagu soo ridan waxa noo sheegay in barkada ay biyo ka buuxeen marka maadaama ay barkada biyo ka buuxeen lama dareemi karo wax ku jiray urkeedana lama dareemi karo marka qofka markuu dhinto lama dareemi karo sida aan ogsoonahay waayahay waynu soconaynaa bulshadii gurceel ayaa marka halka ka sii dureerayso iyadoo markaas la filayo in la isugu tago qabuuraha gabadha lagu aasayo ilaahay uu naxariisto inuu leenahay waayahay asxaabta share gareeya live-ka waxa suurtagal ah inaan ka sii baxno maadaama shaqooyin kale aynu leenahay oo warbixino kale aynu diyaarsan rabno waayahay warbaahintii ayaa qaar ka mid ah gabdhaha la hadlayso warbaahintii ayaa markaas gabdhaha codad ka duubayso bahna ma codad ma qabsatay ما مهينة أبنائي أنا hal iyo laba qofood oo dareenkooda cabir hal iyo laba qofood oo hooyooyin ah oo gabdhaha sida loo galay ka dhiidhiyo dareenkoodana cabiro xubaylo kaale ka duu maamooyinka hal iyo laba maamooyin ah oo gabdhaha qaabkaas iyo ka dhiidhiya arrinkan ayaa loo baahan yahay mikrofoonka la soo bax hooyo u dhib وأهدي أفجعسينهن حي ماما هل يلقوا درين كاغ مانتا iyo gabadha sidii loo gamwiil ma waayahay gabadha hooyadeed ayuu la joognaa inagoo markaas xaafadda ku wareysan doono hay bal gabadhaada iyo inta la eed hay waa habayarteed gabadha waxay la dhalatay hooyaday gabadha dhashay haatan ay warbaahinta hor fadhidaa asxaabta sheer gareeya muuqaalkan si dad badan uu sii gaaro hooyahay bal gabadha iyo xilligii la laay maadaama gabadhaadii ay tahay oo aad ka warqabtay hay wadaas gabar yar way hay magaalada joogtay wareero wax baratay aad iyo aad sidii ay magaalada ku joogtay subaxda way aad iyo aad meel ay ku dambeysay oo gabadha meeqa bilood bay hadad qiyaas ahaan aad isleedahay way maqanta gabadhu waa ka hooyadii markaas dhashay sanad iyo 7 bilood ay maqan tahay dabcan facebookyadana waa laga raadiyay waa 8 bilood aha hay bal hooyo gabadha markii soo bixisay ma ari soo raacday mase goobteeda wax barasho baa gabadha laga helay hay guriga ay joogtay hay goor subax ayaa u dambeeyay hay kale magaalada la bisatay magaalada geelay hay meel ay markaas ay ku socotana cidina garanayso sax hada sideena waa loo waayay
aaladaha lagu hadlo telefoonka gabadha ma lahayd way lahayd laakiin telefoonkeeda oo shaashada way ka tagtay haye telefoonkeeda way ka tagtay mobilka yarka ay qaadato lafta ugu daaranta haye marka ma yaa marka hooy markaad fiiridid gabadha iyo xilligay maqneed tuhuma ma jireen oo shakhsiyaad ugu tuhmaysiin ama xaafadoo kale tuhumaad ka jira oo shakhsiyaad gaar ah lagu tuhmay ma jireen maya qof gooniya oo anagu aan ku tuhmaynay haba yaraatee ma jirto gabadha laba beri ka bacdi la isweydiiyay gabadha weydid ma urus codka duubahay laba beri ka bacdi gabadha la isweydiiyay gabadhii markii la isweydiiyay shirkadda la tagay haye shirkadda markii la tagay waxa la gabadhaas naga maqan gabadha naga maqan markii la yiri bal loo raadiyo lambaradeeda amar uma qabnay dhaheen qolada shirkadda baa sidaas dhaxday aad iyo aad amar uma qabnay dhaheen in badan aan lagu laalaabtay ugu dambeystii lafaheeda bacda dambeystii waxay dhahan anagu haddii aan raadinay lafaheedii ayagoo laba ah waxay yaalaana la yiri bacda oo ah matabaan ka shisheeyo waaxad hiiraan ayagoo dansan haye marka lacaga ankee lagu tuuray lacagta ankee markii lagu tuuraa waxaa la fiirinayay bal in lagala baxo oo la isticmaalo aad iyo aad lacagtii waa la isticmaali waayay haye markii la isticmaali waayeen anagu waxay dhaheen maadaama halkaas aan anagu ku aragnay meel kale uma bixi karno meel kale oon u bixino ma haynaan intaas aan ugu dambeysay haye waa warbaahintii waa wali wala hadlaysaa qabo codka qabo TV صح كلمتين يران ربنا كلمتين ونيرك هذا لايف تليفون وكاga duubay kaamiradan rabnaa si macnaha gabdhaha kale ama hooyooyinka kale gabdhahooda ay u ilaashadaan fariin baad u tahay maanta hooyooyinka kale ma magacaada noo sheeg waayahay dahabo maxaa lagu daraa dahabo cali bal waxa ka warantaa gabadha hadda meedkeeda meesha laga helay maxay sutiin صح خبر بوتا هاي غورما لواي واقف gabar yar oo wax baratay sanadkeedii ku jirtay waxbarasho ay magaalada ku joogtay reerkeeduna ka badnaa hooyadeed iyo aabaheed xagga miyigay jireen iyadana waxbarasho ay u joogtay واقف magaalada u joogtay واقف sidii gabadhu ay saas u ahayd waxbarashadeeda ay u aadaysay subaxyada kamid ay labisatay magaalada xaggeeda ay aaday annagoo garanayn meel hadda markaas ay ku socoto kolay gabdho yar yar la joogay صح hadda waa iska dhalinyaraha waad ogtahay qofka asxaab badan iyo wuxuu iska leeyahay gabadhii haddii la macnaha la isku haleeyo la yiri ama eeday jirtaa ama riiray jirtaa la waayay lambarkeedii la wacay lambarkeedii uu dansan laba telefoon ay lahayd telefoonka weyn oo shaashada ku aadtay oo boorsadeeda ku jira mid yar oo xiseetay oo gacanta haddii dadkii isweydiiyay oo la waayay laba berina la joogo adiga qolada shirkadda loo tagay waxaa la qofkaas naga maqan meel uu sugan yahay ma naqaano adiga amar ma qabnay dhaheen adiga ku noqnoqosho badan waxay dhaheen waxaan aragnaa lafaheedii iyagoo yaala bacda telefoonka laftiisii simamkii waxay istay lacag wiil yar walaalkeeda lacag ku tuuray bal in lagala baxay iyo in kale lacagtii waa lala bixi waayay lacagtii markii lala bixi waayay iyaguna waxay dhaheen wax dambe oo hadda aan ka qaban karno ma ay jirto halkaas aan ugu dambeeyay hadda sidee lagu ogaaday meesha hadda waxaa lagu ogaaday sida hadda annaga naloo sheegay gabar yar ayaa waxaa la yidhi saaka ari soo kaxaysay laba gabdhood yar yar ay ahaayeen labadii gabdhood way macnaha way fara ka ciyaareen kaba iyo waxbay iska tuuriyeen kabaa mid yar uga dhacday kabtii markay uga dhacday meeshay gashay kabtii ka doonatay kollay xukunka ahaa inay waxaan aragto meeshii mindha kabtu ay ku dhacday iyo waxaa xukm yaalay mindha lafaha ayaa yaalay kabtii soo qaada markay istirina waxaa lay madaxaan oo wax jawaanka ku jiro ay soo qabatay soo qabashadii canugtii yareed way qaylida waxaan maxay yihiin neef miya wax saasa islaan weyn oo meeshii socotaa ku leexatay islaantii markay ku leexatana wixii aragtay dabcan wayna ogeyd gabadhan in la waayay way aragtay wuxuu inay madax yihiin wixii way fiirfiiriday jawaankii ku jiraan madaxii wixii waa ka furtay waxay soo wacday gabar kale oo abaaye ah waxay tiri abaayo gabadhii noocaas ahayd ma la helay mayay tiri
waxay tiri wax aan ka yaabnay oo calaamadaasna leh ayaan meeshan ku aragnay meeshii waa lasoo kala cararay waa la yimid markii la yimidna gabadhii waxaa la arkay astaamaheeda astaan ilig jabnaa dhar subaxii ay qaadatay oo gabadhii ay ka jaratay ay joogto oo ay tiri go'a iyo diraca labadaba ana iga gadatay waxaa lagu aqoonsaday iligaas jaban iyo dharkii oo wax yari ay ka dambeeyaan intaasaa lagu aqoonsaday kabacdina hadda warkii waaba baahayba laamaha ammaanka hadda maxay awal laamaha ammaanka ma u geyseen gabarna idinka maqan tahay saldhigga iyo ma raadiseen wallaahi hooyo aniga ammaanka laamahaas ammaanka anigu hadda ma sheegi karo oo hadda dadku iska fara badan yahay laakiin aniga intaas ayaa iigu wardambeysay hadda maxay dadku waa fara badnaa hadda arrinka ragaa la socday laakiin aniga hadda waxay dhaheen warmaha ay kolley markii arrinka la arkay dadweynuhu waxay damceen inay soo qaadaan lafaha la soo aruuriyo qolooyinka maamulka yidhi ha qaadinina meeshii waa la tegayaa waxaa tegaya bahda saxaafadduna waa tegay maamulka waa tegaa bal ha laysla arko dareenka rabnaa marka in dadka waalidka ah gabdhaha iyo carruurta dad badan magaalada joogo sidaan hadda u damqanayso ehel qof kasta gabar ka maqnaa magaaladana way ku soo gudbanayaan falalka noocan oo kaleeta waxaana hadda la rumaysnaan karaa in falkan uu yahay fal la maleegay oo dhacdooyin kale ay la socdeen marka dadka waalidka ah guud ahaan magaalada jooga maxaa leedahay adigoo raba inaad daaq ugu dirto marka loo fiirso gabdhaha yararka oo carruurta iyo xaafadaha jooga ooyo hadda kolley dhibka jira waa loo jeedaa qof walbana haddee damiiraa ku jira hadda waxaan qaban karno oo kolley hadda annagu aan qaban karno male laakiin ilaahay baan ka baryaynaa annaga in dhibkan uu naga kor qaado in maaragtay la iska kaashado oo gabdhaha iyo arrinkooda iyo lala socdo maadaama gabdhihii hilib silba ay iska noqdeen taasun baan dareemaynaa maahane wax kaloo hadda dhihi karnaan balle aragba aad baan uga xunna arrinkaas لكن أدونك وعنك عصرنا ما قدرت هورين إن قبضنا لو فاوصلكين. إسكرافة. وهي taa waxay ahayd habeeyarta dhashay habeeyarta la dhalatay hooyada dhashay markaasi ya وهي marka way asxaabtana lafta gabeeyna kuma santii la socodkiina fadlan share gareeya muuqaalada si asxaab badan ay u gaaraan dadkii waa ay kala tageen oo goobtu waxay noqotay goob faaruq ah arrinkanna waxaa ku raad jooga maamulka oo warka soo saari doono sidaas iyo nabadgelyo يا ما يمرك ورا قيمان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم سودو هذا فضلا شير جراي muuqaalkan share garay si uu dad kale oo markaas aad u fara badan soo gaaro toos gurceel iyo arin naxdin leh waxa saakay abaaro 30 daqiiqo ka hor ma ku hayo 30 daqiiqo ka hor la arkay gabar markaas in muddo ah la baadi goobayay oo markaas la arkay iyadoo markaas jarjaran oo markaas maro ku dadan bulshada gurceel isku soo baxday waaka waa afaafka hore ee magaalada gurceel gaar ahaan halkan waxa la yiraahdaa bareeg dabayl ayaa la dhahaa arrinkan oo ah arrin bulshada ka argagixiyay waa ka gaadiidka kala duwan ayaa markaas soo buux dhaafinaya goobtan waa goob markaas magaalada afaafkeeda hore ah waa bareeg dabayl halka waxa lagu arkay arrin naxdin leh gabar in badan la baadi goobayay ayaa waxa la arkay iyada oo markaas jarjar مريم مركزي كل حجرته شير جراي أصحابته كله يقارتو قردوا مقالة كصوت ديارنا هنا وإذا وذاك دونا وربحنا ذا قرعال كوي توم بلود أيال لو يسني هي مت كم إذا أصحابته السيدة آت كبرامج كانوا يقولوا دولالي هاتنا أيان الصور قل هل كان يمادي بالشدي قرعال أسكو صوب حدي وحين ليا بين أرين كان يوحى حل كان كسو أدي gabadha waxaan loo sheegay in ay ahayd meelsan jiro gabadha waa gabar weyn ah gabadha meedkeedu yaalla waan tagaynaa oo gordhow ayaan u talaabsan doonaa asxaabtaas ahaatee soo bataan mooyinkii caruurtii iyo dhalinyaradii ayaa halkan soo tuban waxaa
xusid mudan in markaasi halkan ay joogaan dad kala duwan qaraabada ayaanu goordhow la xiriiri doonaa waa injineer markaasi muuqaal halkan ka diyaarinaya marka asxaabta soo bata muuqaalka share gareeya wixii su'aalo aad qabtaan waan soo weydiin kartaan waan idinkaga jawaabaynaa bulshadii Gurceel ayaa isku soo baxday kadib markii arrinkan uu noqday arrin argagax leh maamulka degmada xubno kamid ah ayaa halkan ku sugan oo barnaamijkan iyaguna markaasi rabo in ay eegaan marka waxay noqotay arrinkan arrin si weyn looga argagaxo qaar kamid ah bulshada aynu goordhow microphone-ka la dhex qaadi doonaa inagoo su'aalo ka weydiin doona waxa halkan ka jira marka muuqaalkan share gareeya Qaadir Siisa ayaa idin waramaya waayahay aada u badantiin asxaabtu soo badan weeyaan 16 qofood halkan uga jeeda 16kiina share gareeya si markaasi bulsho kala duwan ay markaasi u gaarto warbixinta oo diyaarsan oo edit gareysan goordhow ama galabta aynu markaasi baahin doonaa inagoo markaasi waalidkeed iyo qaybo kala duwan ba warbixinta ku eegi doono iyo gabadhan xilligan waxa halkan looga helay dad badan waxay isweydiinayaan su'aasha ah gabadha imisa ay markaasi maqneed gabadhan waxay maqneed muddo ku dhow 12 bilood ila wareediyo waxay sheegayaan 9 halka ila wareediyo qaarna ay sheegayaan 12 bilood marka waynu eegi doonaa bulshada Gurceel ayaa warbaahinta aad u nacab oo dagaalan xooggan kula jiraan qaar kamid ah markaasi warbaahinta mana jecel bulshada Gurceel ay warbaahinta ka soo hormuuqdaan waayahay kaftan waaye marka inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun alayna goordhow aynu tagi doonaa gabadha halka ay ku markaas meedkeedu yaalo oo mara markaas ku duuban hasa ahaatee muuqaalka la share gareeyo su'aalaha dad qaarna soo weydiinayaan halkan waa Gurceel gaar ahaan Braag Dabayl waa barkad weyn oo markaas dhalinyarada jiilka soo koraya markaas ay ku dabaashaan laamaha amniga ayaa haatan muuqanaya oo markaas bulshada kala horaya iyagoo meed dadka dhexdooda yaalo marka waan soo fiirinaynaa dadka waxa waaye waan soo fiirinaynaa waa ka waayahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun gabadha halkan ay taala maradan aad u jeedin ay gabadhu markaas ku dadan tahay 12 bilood ayaa meedkan la la'ay bulshadii Gurceel ayaa tuban waayahay hala share gareeyo muuqaalka hala share gareeyo waayahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun 9 bilood ayay dadku markaas waxay sheegayaan in la la'yahay halkan ay gabadhu ku dadan tahay bulshadii ayaa aad markaas magaalada isugu soo baxday halkan waa Gurceel Jannat ma lagu arag arrinkan waa ka qof ayaa feedayo iyadoo markaas ay feedayaan madaxooda inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waa ka madaxii gabadha waa ka waka dad ayaa isku tumaya waka waladadaya dadka qaar way fiirinayaan inay aqoonsadaan ay rabaan waka waladadaya meedka waladadaya dadkan oo u badan haween ayaa markaas soo buux dhaafinaya halkan fadlan share gareeya si aan markaas idin kula wadaagno warbixinada deegaanka ka jira ya mid kamid ah hooyooyinka waxay noo xaqiijinaysaa in mididii gabadha lagu gowracay ay meesha ku jirto haye maxaa ka taqaanaa arrinkan muxuu ku saabsan yahay haye gabadhan ma la garanayaa sax meeqa bilood bay hooyadeed leedahay gabadhan bishaana 9 ku ah haye marka xagee gabdhaha ay ku arkeen marka halkan hadii la keenay halkee lagu arkay meedka haye barkadan ay dhex yaaleen marka waa
barkada ayaa lagu arkay mar horaan lagu riday way hay'ad u mahadsan tahay bulshadii ayaa markaasi tuban halkan fadlan muuqaalka share gareey si asxaab badan uu gaaro goordhow waxaan la xiriiri doonaa hooyada dhashay gabadhan oo warbaahinta ka soo hor muuqan doonto iyo iyadoo ka hadli doonto gabadheeda iyo inta bari ay leedahay waayahay barkada ay gabadhu ku jirtaan idin tusayaa waa kan halkan waa barkada ay markaasi gabadhan ku jirtay oo ay gabdhuhu saaka ku arkeen waa meel biyo galeen ah saad u jeedin jawaankii waa ka oo gabadha markaasi ay ku dhex jirtay halkaas bay gabadhu ku jirtay oo ah jawaankaas marka arin la yaab leh ay noqonaysaa maamadii haatan hadlaysa waxa ay sheegtay in markaasi gabadha meesha lagu riday iyadoo biyo ku jiraan barkadan waxaan ogsoonahay xilliga roobaadka in barkadan ay buuxsanto marka dhalinyaro badan oo dabaalanaysan waxa ay sheegeen in dhowr mar ay kor tageen laakiin ay u maleeyeen jawaan qashin ku jiro hooyadaasna gabadheeda waxay la'eed 9 bilood sida markaasi la inoo xaqiijiyay goordhow ayaynu maamada markaasi gabadha dhashay la hadli doonaa bulshadii Gurceel ay aad u soo badanayso iyagoo arrinkan uu noqonayo arrin markaasi naxdintiisa wato Gurceel ay maanta arrinkan ka taagan tahay waayahay aad iyo aad aan ugu xunnahay tiraayadan la qaybsanaynaa waa laga feedayaa marada ayaa laga feedayaa mar kale marka dadku waxayna weydiinayaan sidee lagu aqoonsaday aqoonta lagu aqoonsaday iligii jabnaa ayaa wali jaban oo markaasi gabadha ilig ayaa ka jabnaa hooyadeedna saas ku aqoonsatay 9 biloodna waa ay leed dhowr mar social media ama Facebook waa laga baahiyay hasaatee maanta ayaa meedkeedii la helay iyadoo waliba xilli hore markaasi dhimatay wararkan waxay sheegayaan in gabadha la gowracay maadaama la sheegayo in jawaanka uu ku jiray mindi taana ay ka dhigan tahay in gabadha markaasi la gowracay ama la bireeyay kadibna barkadan oo biyo ku jireen lagu soo kortuuray waayahay laamihii amniga ayaa yimaaday taliyaasha kala duwan ayaa halkan soo buux dhaafinaya bulshadii Gurceel ayaa aad u badan waa ay soo badanayaan bulshada Gurceel iyagoo arrinkan markaasi naxdin weyn ah ku haya fadlan share gareeya arrinkan oo ah arrin si weyn looga naxay waayahay waxaa la filayaa in goordhow laamaha amniga iyo gudoonka ay halkan ka hadlaan iyagoo waliba ka warbixin doono qaabka ay wax u dhaceen iyo laamaha amniga fariimaha soo gaaray gudoomiyaha degmada Gurceel Faarax Fataate ayaa halkan yimaaday isagoo goordhow la filayo in uu dadkan la hadlo si uu markaas u ogaado jooga laamaha amniga ayaa celinayo gudoomiyaha Faarax Fataate ayaa haatan u kuurgalaya qaabkii gabadha ay wax u gaareen iyadoo waliba loo sheegayo in gabadha ay barkadan markaasi ay ku jirtay jawaankaas ay ku jirtaa dhahooya gudoonka gudoomiyaha Faarax Fataate ayaa warbixintan raadinaya waa ka gudoomiyaha oo arrinkan hubinaya madaxda halka buu ku jira sida dadku ay sheegayaan fadlan share gareeya laamaha amniga ayaa feedaya si uu gudoonka u arko laamaha amniga ayaa markaas ku mashquulsan arrinkan naxdinta leh maanta Gurceel ka taagan Gurceel waxaan ogsoonahay inay ahayd magaalo amni laakiin sida la sheegay 9 bilood ka hor ayaa gabadhan la waayay marka waayahay meel kore ayaan fuulayaa si guud dadka meesha jooga aan idin la wadaago soo dhawaada asxaabta share gareeya waata bulshadii Gurceel halkaas saakay kadib markii lagu soo wargeliyay meydka gabadhan hooyada gabadhan dhashay ayaa goobta ku sugan welina waan haleeli laanahay
inagoo rajeynayna in goordha warbaahinta aanu horkeenno marka share gareeya muuqaalkan gabdhaha qaar warbaahinta ay ka cabanayaan maadaama ay markaas warbaahintu ay moodaan in saameyn gaar ku yeelanayso hase ahaatee waan ka soconaynaa ismaanay maxaad saa ka aragtay haye saakay dareenkaaga waa sidee haye gabadhan meeqa bilood la lahay haye dadku hadda maxay arkayaan waayahay waa yaaban tahay waynu ka soconaynaa laamaha amniga ayaa weli mashquulsan sidii ay markaas arrinkan looga hadli lahaa waayahay dadka kommentiyadooda ayaynu ka jawaabaynaa dadku qaar waxayna weydiinayaan yaa falkan geystay ma naqaano asxaabay falkan waxa geysatay mana ka hadli karno laakiin waxaan xaqiijin karnaa oo kaliya in meydka gabadha uu halka yaallo wararkuna waxa ay sheegayaan ama sida aan goordhow idin tusayba waxaa la arkayay mindi markaasi iyo markaasi gabadha meydkeedii oo jawaan ku wada jiro taa ayay ka dhigan tahay marka gabadha in la gowracay barkadana waxaa lagu riday baa la leeyahay iyadoo biyo ay ku jiraan markii barkadii biyihii ay ka dhammaadeenna saakay gabdho ari soo raacay ayaa markaas ama ari ku soo soofiyey magaalada bannaankeeda ayaa kab uga dhacday kadibna mid ka mid ah gabdhihii ayaa waxay maagtay kabta barkada kala soo bax markii maagtana waxay haleeshay arrinkanna wuxuu noqday arrin si weyn looga argagaxo gabadhana waxaa la la'ay 9 bilood facebookyada oo facebookayga oo qayb ka yahana waan ku baahinay in gabadhan la baadigoobayo hase ahaatee saaka ayaan la kulannay markaasi geerideedii inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun ay leenahay sheer gareeya muuqaalka si saxaab badan oo u gaar waayahay ilaamaha amniga ayaa jawaab laga sugayaa guddoonka oo la filayo in goordhow uu la hadlo warbaahinta waayahay meel dalcad ah isku dayaynaa inaan fuulno si warbixinta aynu kula wadaagno kol ayaan si gaar ah u xamanaynay marka live-kan share gareeya si asxaab badan ay markaas u arkaan fadlan share gareeya live-kan waayahay barkadu waa ka dad badan waxayna weydiinayaan barkadana tus barkadu waa barkadan weyn oo markaas biyo galeen ah halkan waxa la yiraahdaa waa baraag dabayl la dhahaa halkaas balaya ku yaalo inta barkadii baa ku taalo xilliga roobka halkan way buuxsantaa oo meelahan lama istaagi karo dhalinyarada ayaa markaas u soo dabaaltagto marka waxa la leeyahay wararku waxay sheegayaan in gabadha barkada oo biyo ku jiraan markaas gabadha lagu riday jawaanka oo afka ka xiran iyo mindida oo ku jirto markaas waayahay mar kale aynu gabadha kor tagaynaa meydkeeda si aynu wax xaqiijino waka halka buu meydka yaala meeshan waa xagee bay dad badan dhahayaan halkan waa Gurceel magaalada Gurceel waaye barkaduna waa tan afkeedii halkaas laga qaaday gabadhana halka baa laga qaaday jawaankan soo dhaweeynaa gabadha jawaankaas ku jirtay oo dhowr bilood ka hor lagu soo tuuray yaa gabadhan meedkeeda meeshaas dhiiqada ka fogsan yahay laga qaaday halkaas laga qaaday marka waa sidaas mid ka mid ah hooyinka meesha ku sugan ayaa sida inoo xaqiijiday maamadii gabadha shaaw meeleno waayahay oo ay imaanaysa meelena waxa meeshaas ku wareysana marka xaafadeeda ugu tagina ayada dib mala marka maamadii gabadha dhashay ayaa goordhow warbaahinta la hadlayso inagoo xaafadooda markaas ku booqan doono fadlan share gareey haddii aad tahay reer Gurceel ama reer Galmudug ama Soomaalinimo ay kugu jirto
si markaasi arrinkan ay dad badan markaasi ugu qoys qaataan oo gabdhahooda meelo cidlaha u dirsado fadlan gabdhaha la waardiyeysto dad badan baa live ka soo galaya oo idhahay soo qabo saaxiib si lagu soo qabto ma aqaano raalli noqo marka waayahay marba marka ka dambayso dadku waa ay soo badanayaan arrinkan markuu dhacana ilaahay amarkiisa cadar ayaaba cirka isku shareeray waa ka bulshadii Gurceel oo markaasi banaanka soo turtay iyagoo markaas si weyn arrinkan uga naxsan gaadiidka kala duwan ee magaalada ayaa halkan soo dhoobanaya waayahay dadka kommentiyadooda ayaan akhrinaynaa fadlan kommentigaada soo qoro oo aynu ku baahin doonaa gabar lagu magacaabo Nimca Nalka magaalada joogis ma lahan ay leedahay abay ka xaraw ayaan ku leeyahay waayahay asxaabta kale kommentiyadooda waan ka jawaabaynaa insha Allah gabdhaheena xaroodan ay leenahay maadaama magaalada aysan joogis lahayn oo 9 bilood gabar la la'ay iyadoo gowracan la arkay waayahay Tuuxu waa uu mahadsan yahay Maxamed Cabdiwali Tuuxu waa mid kamid ah saxafiyiinta ugu saameynta badan gobolka live-ka ayuu leeyahay iska sax saaxiib waan iska saxaya oo qaloocan yahay oo dhooya Tuuxu live-kaaga waayahay waan toosinaa ku dadaalaynaa maadaama ay dabayl aad u badan ay meeshan ka jirto hadlaysa in soo istaag waxaad ka hadashaa bal arrinkan iyo xilligan wax ku soo aadiyay صح هاي هاي واي هذه gabadhan meeqa bilood la lahay haye arrinkan marka qaab noocay ah baa gabadhan lagu arkay meedkeeda gabdha yar yar ah macnaha baraagtu way qalalneeda arig ordax xeeyay haye hooyadeed ma haysto haye taas soo sano ay 9 bilood ay hooyadeed u meel ku wareysay aad iyo aad sorry meela wuxuu raadin ma taqaan haye gabdha yar yar waxa